wasiirka xafiiska dakhliga dowladda deegaanka Soomaalida mudane Maxamed Cabdi, wasiirka xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka mudane Cabdixakiin Sheekh Xasan, iyo gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda guud ee dowladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdikariin Axmed ayaa kormeer iyo taakuleen ku gaaray degmada Qabri Bayax, waxaana ugu horeyn ay kulan la yeesheen hogaaminta degmadaasi si loogu bayaamiyo howlaha loo yimid degmada. hogaamintani heer deegaan oo ay wehelinayeen gudoomiye ku-xigeenka gobolka Faafan mudane Cabdullaahi Axmed, madaxa arrimaha xisbiga gobolka mudane Maxamed Yuusuf iyo xubno xildhibaano ah ayaa kormeeray biyogelinta degmada oo waraabisa 16 qabale oo hoos yimaada degmada Qabri Bayax iyo bundada isku xidhaysa Qabri Bayax iyo Buladari oo maraysa 70% wax weyn ka tiri doonta isu socodka bulshada aagaasi. geesta kale mas'uuliyiinta heer deegaan ayaa gaaray magaalada Harta Sheekh ee degmada Qabri Bayax, halkaasi oo qaybaha kala duwan ee bulshadu si diiran ugu soo dhaweeyeen waftiga, iyadoo markaasi kulan lagu dhageysanayo tabashada shacabka ee dhinaca adeegyada asaasiga ah lala yeeshay bulshada magaaladaasi. waxaana sidoo kale la soo kormeeray geedi socodka barisbarasho ee dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Axmed Boon, dugsiga sare ee Dr. Cabdilmajiid Xuseen, biyogelinta magaalada Harta Sheekh oo ah mid dhammaystiran oo laga hirgeliyey magaalada, xarunta caafimaadka magaalada iyo dhismaha ballaarinta dugsiga hoose dhexe ee tuulada Allay Baday oo si isku tashi ah ay bulshada iyo dowladdu ku dhisayso.